halgankii diimeed iyo kacdoonkii wadaninimo ee hormuudka uu ka ahaa Sayid Maxamed Cabdulle Xasan kadib bulshada Soomaaliyeed waxaa ku dhashay baraarugsanaan siyaasadeed iyo sidii ay ayahooda uga tashan lahaayeen. dabayaaqadii dagaalkii labaad ee dunida ku baahay wuxuu Soomaalida ku dhaliyay dareen cusub oo ku salaysan gumeysata koorid iyo wixii la halmaala. waxaana bilowday himilo wadaninimo oo Soomaalinimo ay ku dheehan tahay siiba gobolada koonfureed bishii Maajo sanadkii 1943 waxaa ahdi isu maray 13 dhalinyaro Soomaaliyeed oo u guntaday in ay furaan urur siyaasadeed oo ku wajahan halgan xornimo doon ah oo la magac baxay SYC. SYC waxay durba ku caan baxday daacadnimo iyo wadaninimo umadiina waa u riyaaqday waana la taageeray. SYC wuxuu isu rogay xisbi siyaasi ah oo loo bixiyay SYL Somali Youth League. kuwaas oo dowladda ku ah waraaqii iyo macluumaadkii halkaas ahaa bidii ee laga soo maray joogay tan halkan maanta laga joogo oo ka Ali Shido Abdi Maxamed Ahmed Ali Otabo Maxamed Yusuf Muro Maxamed Saad Labane Maxamuud Maxamed Jaagale ayaynu jeclahay inay wixii macluumaad ku saabsan halgamagaas aanu qarigooda taariikhda ku qorin إليه وعاوية. أنا ما أدري هذا ما أدري شيء. أنا أعلم ولا أقدر أقول أشياء. عايش الدكتور شكله طبعا. بيجي مثلا وطريقة يعني سكر. نجي على الناس شكرا لكم الدعاء بيس كم درس الدنيا. نجي على الدنيا عرسة. وضع في الدنيا والسادة عليك ما نسأل ذلك لا يستطيع بسبب الزراعة هذا الوجه كورمال لا يوجد كورمال ما في بالنسبة له على كورمال أروح أنا من ذلك الزراعة وها كورمال وأنا أتجاوز أفضل يتجاوز بشيء أبي شركة لا يعطي كونغرس لا يعطي ظهر كونغرس لا يعطي نقطة الشباب أما نقطة الشباب إلا بدلوا المجمع ولقبحوا كلامي يو SYC لو بدلوا SYL هي السياسة وقت الناس تدوات أفضل يتدرب الروضة الياسين المكلمة بحوالين دول مركا يعطي الله لنبي كارية اسكو وقت اللي يعمل إلهي بلك بعد مركا بعد يعطي الله يعطي ياسين اسكو وقت اللي يعمل الله ضغطي وجودي بقدرتي أما في الجريس بقدرتي إلا في الجريس يقدر ينتقل إن عبد الله وغيره geeridii marxuum Yaasiin Cismaan Keenadiid waxaa xogayaha guud loo doortay marxuum Cabdullaahi Ciise Maxamuud oo ku xigeenkiisii ahaa markaa oo dhaqdhaqaaq siyaasadeed Soomaaliya ka aroolsanaa oo miyi magaalada ku wada fiday ama gaaray dad badan oo dunida saddexaad maanta ka tirsan ma aanu qabin barnaamijkaasi siyaasadeed iyo midnimo bulsho toona sidoo kale dhaqdhaqaaqa xornimo doon ee Soomaaliya ka shacbaxay wuxuu yaabiyay amka ku riday gumaysigii ka talin jiray goboladii Soomaaliyeed ee kala ahaa Ingiriiska, Talyaaniga, Faransiiska iyo Xabashida. bal waxa la tuusanaa socodka marka xisbiga Ingiriisku wuxuu tuusanaa Talyaaniga ayaa wax loo Talyaaniga waxay tuusanayeen Ingiriis ayaa wax loo labada tuumada caynkaasi ka qabeen waayo dadka oo aqlo qiyaaso heerka aqoonta taagan heerka taqaaliid taagan heerka qaliil Soomaaliya ka taagan ما يقدر يسكن يصعد كحزب وحرينا مسؤولك أركان ما يقدر يسكن تقارعنا كل وقت برشان قدام سياسة بقى قوم للناس عن أي سكوجري ومرضى هي كذا أنا أسوأ كذا أنا وضع تعطيك عن كان صغير كذا ما ولا تعطيك حزب لا وقوعها ومش حزب لا حزب وحارك أحد حزب لا المقدم
وقت بالآخر نبدأ نعي كيف نبقى قبل أطور البوليس كان الجيل وحشوه قريبين وشارك قريب البوليس ما كان واحد شرفنا وضوء أطور ما صنعين شيئين ما كان واحد الوالين الحسن لأسفل العراق وأنا التولة أما خبيئة أما قبيرة أما صقجان أيام الوالي وحوالي بنت يعني وقع أيام الوالي أسوائل waxay durba astaan u noqotay dalad midnimo iyo qaranimo xambaarsan oo ku fida dhulka Soomaaliyeed sida daraadeedna waxa ururku bartilmaameed uu ka dhigtay xurmo dhalin iyo mideynta shanta Soomaaliyeed inkastoo himilada Aswaa'il ay ahayd mid la maalnoocaan ah haddana cadow la'aan mayan ahayn oo waxa isu kaashaday maamuladii dalka kala xukumayay iyo dhowna qaadayaashii u adeegi jiray waqtigaasi Aswaa'il waxay ahayd kacdoon bulsho oo rag iyo dumar u wada guntadeen oo nabad iyo colaadi midna lagu maqwalin karin halgankii kuwii ku nafwaayay waa loo mashxaradi jiray taasuna laba kacleen bay u kordhisay nafti horeyaashii ku hoobtay ugeediga xornimo doonka carada kaga jiray intii kacdoonka xornimo doonka lagu jiray ilaa laga qaatay xornimada waxaa dhaqanka ummadda ka tirtirmay hab dhaqankii hore lagu dhaqmi jiray sida abtirsukufaanka beelnimada gobolaysiga baalgelinta naasnuujinta bahnimada qabiilka laaluush cunida eexda iyo wixii la mid ah waxaa ambaqaaday qoweyne Soomaalinimo midnimo bulsho istakoorid la'aan sinaan iyo cadaalad isku tiirsanaan iyo jaalnimo buuxda yani waxa lagu soo socday dowladnimo raadis iyo axyaa watari iyo dadan kala leexanin isku hooyo isku aaba adugii badnaa ee ka soo horjeeday Aswaa'il wuxuu waayay meel dabacsan oo ka galo si uu halgankooda ku fashaliyo taasoo hagaardaamadeedu soo gaartay ilaa xirnimo laga qaato ururkii leegadu wuxuu samaystay maamul hoosaad uu ku filiyo himilada la teegsanayo sida guddi dhexe oo muqdisho fadhiyay oo ka talin jiray arrimaha maamulka xisbiga waxa uu xil saarnaa howlwadeeno ku xeeldheer maamulka iyo taakulaynta guddigaas wuxuu dejin jiray xeerka ururka qorshaha howlgalka iyo siyaasadda guud ee la tibaaxayo gobolada koonfureed ka sokow naadiga leegada waxaa laga furay degmo kasta oo dalku ka kooban yahay kulay ku ahayd goboladii Ingiriiska iyo kan xabashidu ku hoos jiray ma sheegaysaa magaca saddexan Mussolini magaciisa oo saddexan aniga waxaan yiraahdaa Maxamed Faarax Ismaan yaa Mussolini Mussolini ku baxay magaca oo ku baxay markii aan jiljeeran qorabtii oo maas aan arag ugu leeyahay xilay ama maamul tuulay ولا ما يصير كذا مسلمين هذا نفط المغرب لا أنا ما حكيت والله أنا لا أنا في الجزيرة دورمان عشان يعرفهم واحد علوي له مستوى وكان على الجزيرة وكان على أنا قلت له أتوب سيناء أتوب العالم في المغرب شر العالم ما اسمه ثالث بالإنجليز كان لكن محاربة لكن غيره ما في إنجليز هو غورة العالم هنا دجية أفضل ساعة شمس الساعة مثلا العالم هنا دجية أتوب وعن صوت على إحنا ما ولا بطل على مريء وقتها كفر غيره بشمل سيدات ساعة الإنجليز هو العالم هو ماشي عن كل علمي ما يقول إن السبب كفر عن كل صدق أنا واصل في سيفر قاتل لكن عسكر الإنجليز كانوا حوالين السوريين والعالم فاكر فلاح فاكر أبي أبو مان وحفظ الولاء ومان وفلاح السيكان عسكر يقول له صدق على وقت من قاعد صدق صدق كتير دام إذا كان على اتحاد الصدق قال للعالم دام هيك على دام هيك على كونه يقول سبب اسكول حريري جدا لبدا درسيون كلاجدا او بينما يمك حمر سبب اسكول حريري جدا كانوا هاي يعني هو اسكو حرني مر والله وعائما هي وفد بانو ايمان هي ضد كل يابا يعني شراي يعني سيدي مشير إيمان هي الواشري أو يعني وحنا تسعي يعني مركي أي كومنتات شنتالة أي حمر كسر بحيسو جيدتك أردن وحنا بيجي جرني هرسيتك
ayaa maaragtay isagoo daraacii aan foormihii iyo istantiibooyinkii iyo wixii annaga wadana yaanu maaragtay yaa bisigeynay ilaa maayafuulka iyo meesha diriseena intaas ayaa la xiri jiray sidii bashiirka oo imanaya. waxaana maamuli jiray howlwadano ku caanbaxay howlkarnimo iyo daacadnimo. dhaqaalaha xisbiga leegada lagu maamuli jiray waxaa laga aruurin jiray intii markaasi mushaar qaadin jirtay. dumarkana waxay iibin jireen dahabkooda si loo kabo howlgalka ururka. leegadu waxay abuurtay kalsooni Soomaalinimo waxayna noqotay baaq la isku afgarto oo la isugu hirto. horumarku leegadu gaartay yool ay dhalisay waxaa saldhig u ahaa daacadnimo, xilkasnimo, wadanimo, hil iyo hoo wadaag, niyad sami, bulsho kalkaalid, sinaan, cadaalad iyo midnimo qaran. Abdullahi markaa markiisa nin talyaaniga yaqaano jariidada soo baxda Soomaaliya fashiista la yiraahdo wax ka akhristo ahaa. haddii habeenada aan wada soconay labadeenooda wax kala qaadashadii waxay noqotay inay kalsooni wadaninimo xaggeeda ah nagu abuurtay yaasiin iyo cabdullaahi ciise midda u dhaxaysay waa ku horeysay aasaaska SOS waa ka horeysay isu imaadkan raggan iyo waxa kan waa ka wada shaqeynaya kana sii sheekeysan jiray intaan wax kan la bilaabin siyaasadda اللهم حريص ياسين مركي لوضو كده أو محمد الشيخي حويها لوضو ورقة أهريسي ورقة دي بضل لوضو أو أخر كواوين لوضو إله لوضو يا رجي إنجليزي يقين بادرات السبيعي عجداني كم زهايين ورقة تقال وحمد ياسين وجوه الجوجة وإليه يدين الصوص هدي بلوك الصحي كريم يقول ذلك marka laba baan marba ku noqday oo tagay marka yaasiin baa uu iga sheegay Cabdullaahi ciise alaykum uu leeyahay waxaa la yiri ilaa wada timaada oo shaqada soo baxda waa kida gamay maxaa raacsan tahay waa ogahay laakiin bishar Cabdullaahi ciise in la iikay hada Cabdullaahi ciise marka ma aqaan Cabdullaahi ciise muxuu yahay marka sheekada uu hadda muur sheegay biga sheekay wuxuu waa inay وفي فرعون وأنا أفهم بدن وميدان كل شيء. عبد الله عيسى محمود وحكو عن بحي مامل وناج ururkii xirnimo-dhalinta gobolada koonfureed kaasoo lagu xushmeeyey inuu noqdo wasiirkii koowaad ee gobolada koonfureed ka hor inta aan la qaadan xirnimo buuxda. jagadaasi uu sii hayay ilaa markii xirnimo buuxda la qaatay oo waqooyi koonfur ay mataanoobeen dabadeedna la dhisay dowlad madax bannaan oo loo dhan yahay. Cabdullaahi ciise wuxuu horyaal u ahaa raggii ugu dhabar adkaa israaci gobolada waqooyi iyo koonfur. leego ma jiri lahayn Cabdullaahi ciise la'aantii, Cabdullaahina ma aanu jiri lahayn leegada la'aanteed, xirnimana ma jiri lahayn leegada la'aanteed. markii xirnimada la qaatay oo la dhisay dowlad qaran, Cabdullaahi wuxuu si buuxda uga qayb qaatay inuu wax ka dhiso dowladda cusub ee loo dhan yahay. markii dowladii kacaanka ahayd ee dhalatay, Cabdullaahi ciise waxaa safiir looga dhigay wadanka Sweden. marxuum Cabdullaahi ciise wuxuu dalka uga tagay magac xushmad iyo qadarin leh oo jiilasha dambe ay ku halqabsadaan. xushmadda iyo karaamada ummadda Cabdullaahi ciise ummaddu u haysay waxay muuqatay maalintii aaskiisii ay ka soo qayb galeen dhammaan golihii sare ee kacaanka, madaxdii dowladii iyo bulshooyintii Soomaaliyeed naqsho ku sugnayd. ummaddu qaran ma hanato haddaanu lahayn haliyo qarnimada ku dhaadata oo taariikhdu ay xusto.
wuxuu ahaa nin sida cali hadda uu sheegay afkiisaba qayan karin inuu qofka erey ku waayo haddii qof uusan aqoon ku soo galo xafiiska kolka isaga kuma salaamana waa istaagay markuu dhaxalana ilaa cilmika uu ka geeyo xataa dadka la shaqeynaya dadku si fiican u yaqaano iyagoo qaybinaya leeyahay war shaqadaas qabso iska joogo isaga intaas intuu ninka xurmadiisa keliya uu dhowrayo ilaa cilmika uu ka geeyo xataa kama uusan haraynin marka waxaan ku qiimayno oo hadda aan nidhaahno intaasay qiimihiisa tahay annaga aan idiin sheegno ma aan hayno maxaa jira waxaa muuqaal ka ah keliya soomaali isagoo maanta wax martabad uusan ka haynin ee jirin wixii loo qabtay geeridiisii oo dowladdu u qabatay shacibkana ay uga soo qayb galeen waxay muujinaysaa wixii isaga u ahaa mahan wax dadka ay doonayeen iska yeelaan inay ahayn wuxuu sag ahaa muuqaalkaas ay ku jiran wax in la sheego u baahan inay jiraan سريرا يهوتنا رديبا يهورنا رورا قدم بنا ريبا تهريرهنا ريحا تهريرهنا ريحا تدهلنا ربي الرحمة ربي غنو كشبو رابتا ولي غير كل شيء سن 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 كونو كونو Kapio Rahmano Somaliga Urono لا اله الا الله محمد رسول الله Adura kakagata kayahai marorta layiriye dan la rugin raggan hedine labatalaba irone dan la rugin raggan
helin baa la yidhiyey ribataye allahayo laba talaba tirowne rono 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 rabbiyo mano somalida rono 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 rabbiyo rahmano somalida rono بلا سريرا كهوتنا رديبا كهورنا رورا كالذنب لا اله الا الله 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 محمد رسول الله تهررهنا ريحا تهررهنا ريحا تدهلنا ربي الرحمة ربي غنو كشبو رابتا وليغيك كرشيسن 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 Rono, 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 Rabbiyo Rahmano, Somalida, Rono. سريرا كهوتنا رديبا كهورنا رورا كالذنبنا ريبا تهررهنا
ريحا تهررهنا ريحا تدهلنا ربي الرحمة ربي جنو كشبو رابتا وليجيت كرشيسن 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 Allah